Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan casharkan ku baran doonaa qaabka loo sameeyo Gmail. Qaabka Gmail looga sameeyo laptop, desktop haddii uu ahaan lahaa ama laptop haddii uu ahaan lahaa. Labadaba sida looga sameeyo Gmail. Videogii hore oo waxaan ku soo aragnay qaabka Gmail looga sameeyo taleefankaaga. Haddii aad taleefan u baahan tahay, fadlan videoyaashana kaleeta fiiri, halkaas ayaa ku arki doontaa. balse videogan waxaan ku baran doonaa sida loogu sameeyo Gmail laptopkaaga adoo isticmaalaya haddii uu yahay laptop ama desktop. Marka hore waxaa sameynaysaa browserka ayaa soo kicinaysaa. Browser waxaa loo yaqaanaa meesha laga galo internetka. Browsers waa kuwan hadda aniga saddexdan ay ugu jirto. Waxaan ku dhufanayaa browser Google Chrome ama Mozilla, mid kamid ah ku dhufo. Opera waa la isticmaali karaa. marka anay hadda waxa soo kacsanayaa Google Chrome. Hadda Google Chrome-kii ayaan ku jiraa, browserkii ayaa soo kacshay. qaybtan kore ayaa waxaa loo yaqaanaa URL-ka ayaa waxaa ku qoraysaa gmail.com URL-ka ku qor. gmail.com ayaa waxaa ku qoraysaa qaybta sare ee URL-ka. enter ayaa dhahay kadib. enter markii aad dhahdo waxaa rabaa inuu geeyo page-ka Gmail-ka. waa kan maxaa ii soo baxay meesha Gmail-kii la gelinayay ee lagu qorayay ayaa ii soo baxday. Gmail haddii aad leedahay halkan ayaa laga galaa. meeshan waa meesha laga galo Gmail-ka. balse anaga hadda inaan Gmail galno ma rabnee, waxaan rabnaa inaan samaysano Gmail cusub inaan samaysana rabnaa. marka waxaan sameynaynaa qaybta hoose ee waxaa ka tegaynaa Create account. qaybtan ayaa dooranaysaa. click ku dheh. click markii aad ku dhahno wuxuuna geey doonaa page-ka lagu abuurayay Gmail. waa kan wuuna keenay. muxuuna yidhi first name last name ayuu naga rabaa. first name ayaa gashanaynaa. first name-ka waxaan ka dhigaynaa Mohammed. last name-kana waxaan ka dhigaynaa Nuur. Mohammed Nuur ayaa ka dhignay mujeedaa. Mohammed Nuur. inta marka waxaa gelinaya inta username-ka aad rabtid ayaa gashanay. hadda qaybtan kore first name iyo last name-ka waa magaca Gmail-ka. balse username-ka Gmail-ka aan isticmaali doono waxaa looga baahan yahay qaybtan username-ka ku qoran tahay ayaa Gmail-ka aan rabno nooca. hadhow address-ka haddii la dhaho Gmail-kaaga ii sheeg, address-ka aan rabo inaan gudbiyo wax lagu soo diro ana aan wax ka diro, halkan ayaa la gelinayaa. marka Gmail-keenu waa kan xasanuur006@gmail.com. asiga computerka ayaa si automatic u raacsiin doona. magaca korena waa kan, magaca kore ay soo muuqan doono waayo magaca kore ee Gmail-kayga. okay, hadda magac waa u sameysanay, address-ka Gmail-kiina waa sameysanay. maxaa ku xiga? password u sameey. qaybta hoos u soo dego. password waxaa gashanaynaa password gasho. passwordka waxaa ka dhiganaysaa xarfo iyo erayo isku dhex qasan. inta muxuu leeyahay use 8 or more characters. waxaa isticmaashaa 8 xaraf ama 8 ama in ka badan ayaa isticmaali kartaa. marka waa inay isku dhaf ahaadaan, ay isugu jiraan letters iyo numbers. letters oo xarfo ah iyo numbers oo nambaro caadi waa taqaanaa, iyo symbols calaamadahaas ad iyo dollar sign iyo afargeeska iyo xidigta waxaasaa la gashanay. ma fahanti? waa isla garanay. waa samaystay. haye confirm-kii keen. confirm-ka waxaa ku celinayaa password-ka aan geliyey si aan u xaqiijiyo. waa xaqiijiyey, waa geliyey. next yaa dhaha. next markii aad dhahdid wuxuu ku weydiin doonaa taleefankee ku samaysanee Gmail-kaaga. taleefankaaga marka waxaa gashanaya taleefanka adiga aad isticmaasho. numberkii waa geliyey. inta wuxuu ku weydiinayaa recovery email. haddii aad leedahay gasho, haddii kale waa ka socon kartaa. qaybtan imow.
qaybta maxaa waaye waa bisha dhalashadii January iska dheh waqtiga dhalatay kow iska dheh inta 2000 kii hore saan ayaa gelinay markii aad telefoonka ku sameynayna genderka imaw genderka maxaa waaye waa male or female ayaa ka dooranaya hadba nooca aad tahay haddii aad dumar tahay female dooro haddii aad rag tahayne male dooro anaga male ayaa dooranay hoose u soconaynaa markii asaas dhaadid kadib nagasta ayaa dhehnaa hadda wuxuu leeyahay ma rabtaa in lagu save gareeyo passwordkaaga computerka kugu save gareeyaa igu save gareey computerka hadhow markii aan soo kici tago toos ayuu soo kici doonaa uma baahna inaa password dib u gelgeliyo oo soo xusuusanayaa hoos ayaa u soconayaa waxaa ka dooranay agree I agree uu soconaya hadda gmailkeenu waa diyaarinay hadda wuu soo kacoyaa wuu ishabeenayaa ma fahanti inta badan hadda waa saxnay loading gmail ayuu galay bal aan sugno waxa uu soo saaro aan isla aragno waa kan gmailka hadda ayuu noo soo kacay gmailkeeni waa noo diyaarsan yahay waa asiga ayaana ku jirnaa qaybtan kore oo emta ku qoran tahay waa waxaa soo fuuli doona hadhow iconkan magaca uu xarafka uu ka bilowdo magacaaga ayaa halkan soo fuuli doona xarafka uu ka bilowdo magacaaga ayaa halkan soo fuuli doona ku dhufo maxaa noo muuqda xasan nuur eber 6@gmail.com magacii kor waa kana first name kan mujada first name ka maxamed ayaa kasoo dhiganay last name kana nuur ayaa ka dhiganay laakiin gmail kan maxaa waaye waa xasan nuur 006@gmail.com waana ciwaanka aad isticmaali doonto oo hadhow kusoo geli doontid email iyo fariimaha ka diri doonto waa kana waxaan rajeynayaa inaad fahantay xirti markii aad rabtid qaybtan kore fur markii aad furtid waxaa ka dooranaysaa qaybtan sign out iga saar waa ka baxaa markii uu meeshan ku keeno waxaa sameynaysaa remove ayaa dhehaysaa ka saar remove markii aad dooratid hadhow wixii emails oo computerka lagu galo dhan halkan ayuu kusoo safi doonaa midka aad rabtid ayaa waxaa dhihi doontaa cancel calaamadan close-ka haddii aan saaro computerka oo dhan ayaa ka saaray you removed all accounts hadda emailkayga waa saaray computerka waa ka saaray safe waay marka waa mahadsantahay intaa cashirka kale ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo